waxaa jiray waqtigii kacaankii siyaad bare culimaa waxaa loo diray inay xeer ka soo saaraan may culimo ma ahayne dawladda loo diray waxaa lagu dhahay xeer ha laga soo saaro xeerkii la soo saaray wuxuu noqday in diiniyan gabadha iyo wiilku ay sinaadaan dad islaamaa baan nahay inagu ashhadu laa ilaaha illa maxamed rasuulullah ah ma ilaahayna ma simin markaa diiniyan ma simi karno dawladdii siyaad bare wadaadadii baa qaybisay way dagaalameen kurku korta madaxa ka wada jar masiibadii waqtigaa inagu dhacday alaa weyn weyn ku jirta waxaan markaa soo jeedin lahaa xeerka maadaama baarlamaanku xeer buu ka soo saari doono inaanu khilaafsanin diinteena islaamka cutubka labaad qodobkiisa afreelaatanaad hantida gaarka loo leeyahay farqadiisa labaad dawladdu waxay si khasab ah hantida ula wareegi kartaa marka ay jirto dan guud qof kastoo hantidiisa danta guud awgeed loola wareegay wuxuu dawladda xaq uga leeyahay magdhow caadil ah dhinacyada heshiiska ama ay maxkamadu go'aamiso hantidu maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa guri waxay noqon kartaa dhul waxay noqon kartaa bangi lacag ku jirta maxay noqonaysaa waxa qurux badan waxaan waa dastuur inay ku cadaato wax kasta oo soo qoraysaan oo bartoola qofka xuquuqdiisa iyo xaqiisa uu ku helayo inaad soo qortaan laakiin hantida guud markaad soo qoraysaan hantidu waa macno badan tahay Soomaali baan nahay hadalkeenu si kasta uu macno badnaan doonaa qodobka 25aad xuquuqda bulshada qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo biyo nadiif ah oo cabo yuu ka helayaa ma dawladdu ka helayaa ma wuxuu ka helayaa hay'adaha yaa loo raacaya ilaa kumeedaan soo qaxin cidda uu ka helayo inteena badan deegaamada abaaruhu ka dhacaan ama deegaamada shabeellada hoose iyo waxa jirta dadku inta badan waxay u dhintaan inay cabiyaan biyo la'aan iska daa biyo aan nadiif ahayn inay u dhintaan wax ay biyo ay carabka saaraan inta badan biyo iskaga yaala dawladdu ma gaadho hay'ado ma gaadhaan marka haddii aad tiraahdo waan iska hadlaya waxbaan iska xariiqaya waayo dar waxa soo jeedinaya in la raaciyo cid biyaha laga doonayo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay daryeel bulsho oo dhammaystiran daryeelka bulshada keenaya dawlad baa keenaysa mahayad baa keenaya yaa laga doonaya daryeelka bulsho waa lagu cadeeyaa dawladaha ay ku hoos imaanayaan mahayadaha madax bannaan ay imaanayaan waana ku soo qoraan because dadkeena inta ugu badan maanta dhibaataysan waa dadka danyarta ah een haysanin caafimaad maanta caafimaadku waxa uu insaanka ugu horeeyo uu helo noloshiisa waa caafimaad waxa soo labeeyana waa waxbarasho haddayna ka sii horeenba nabad marka inagoo nabadeennina weli ay waxay naga maqan yihiin oo dhulalkeena qaybo ka mid haystaan niman isku sheegaya in ay yihiin diin inay ku darayaan in caafimaadkoodii iyo biyaha ay cabayaan iyo noloshii adkeedba aad moodo in si looga cararayo qodobka 26aad daryeelka qoyska qof kasta oo qaangaar wuxuu xaq u leeyahay in uu guursado guurkaasina uu ku yeesho qoys uu ku leeyahay diiniyan waa fiicantahay guurka nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa sunne inaynu guursano waa sax maxay ay dawladdu ay ka qabtaan inta badan waxaad arkaysaa guur aan dadka eheladiihi aan raalli ka ahayn oo la isku guursanayo awlaada ka dhalanayaan wax aad ka kastamaba qudbasare la ilaa waxyaabaha ay inagu qaangaaray oo jaahilnimo tahay guurka sidiisa banaanba wuxuu ku qurxiyay madal in la isku bixiyo qodobkiisa 6aad xeerka uu soo saarayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya nidaamka arrimaha qoyska waxa jiray waqtigii kacaankii siyaad bare culimaa waxaa loo diray inay xeer ka soo saaraan may culimo ma ahayne dawladda loo diray waxaa lagu dhahay xeer ha laga soo saaro xeerkii la soo saaray wuxuu noqday in diiniyan gabadha iyo wiilku ay sinaadaan dad islaamaa baan nahay inagu ashhadu laa ilaaha illa maxamed rasuulullah ah ma ilaahayna ma simin markaa diiniyan ma simi karno dawladdii siyaad bare wadaadadii baa qaybisay way dagaalameen kurku korta madaxa ka wada jar masiibadii waqtigaa inagu dhacday alaa weyn weyn ku jirta waxaan markaa soo jeedin lahaa xeerka maadaama baarlamaanku xeer buu ka soo saari doono inaanu khilaafsanin diinteena islaamka
saynabe hawaryar u kaadi waa ku imaanaysaa qodobka 22aad xuquuqda shaqaalaha qof kasta oo shaqaalaha gaar ahaan haweenku waxay xaq gaar ah u leeyihiin in laga ilaaliyo faraxumeyn xuquuqda koorid iyo goobaha shaqada xeer kasta shaqaalaha hab dhaqan kasta waa inuu xeerka sinaanta xuquuqda shaqaalaha la leeyahay maxay tahay cunfiga gaarka ay haweenka loo geysanayo aynu ku kala dheernahay shaqaalaha maxay tahay aniga xildhibaanka ag fadhiya aniga oo kala duwan aniga la ilaalinayo wax laga ilaalinayo muxuu waxa uu moodaaba qoraalada xitaa markii uu qorayno inuu qiimkeeni waxbarashada aqoonta midna tooneen inay ku dheehaneen haddii la rabo cid in la ixtiraamo cunfiga laga ilaaliyo waxa jira dad la yiraahdo waa la takoora dadkaas u baahan in laga wacyigeliyo fiyada loo geysana sidoo kale waxa jira dad naafa ah oo u baahan iyaguna in laga hal cunfiga laga daayo oo loo sinaado qofka naafadaana ilaahay baa ku cimro qaata moogtahay curiyaan kaba cagalooma waayna caynka wax loo yiri soo heesmay oran jirin ilaahay baa qofka banaadka tusaale loogu siiyay wax haweenka gaar ah oo halkan aad ku soo xariiqdaan oo loogu geysan karaa ma jirto xuquuq baa leedahay xaq baa leedahay waa ku qorantay dastuurkii ku cadahay sheeka mala awaalaadkan aad ku soo qorqoraysaan aad keenaysaan waxa waa dastuur waa aayad mustaqbal waxaad maanta taagantahay ma hasa aad rabto aad yeeli kartaa xuseen iido adaa gudoomiyihiya waxa ka codsanayna markaad qoraalada aad qoraysaan waxyaabaha disasterka noqonaya ama dadka dhibaato u geynay inaynu iska ilaalino cunfigeed ku soo qoraysaan haweenka maxaa cunfi loogu geysan karaa waxa soo qalad dadka haddii hiilo u baahan tihiin dadka beelaha shanaad ee hal iyo habeen qaylinaya ayaa idinka baahan hay inaad ku cadaysaan in ay xuquuqda qofka kale uu leeyahay la sintaan sidoo kalena dadka naafada ah taasaa hiilo idinka baahan igana raalli ahaan hadduu wax iga tegay toosin bay iga ahayd waxaan leeyahay reer gobolka banaadir jaaga ugu horeeyo leaderka waxaan ku rajeynayaa inaad noqon doonto 26 madaxweyne waddanka ka noqda